waa galabnimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 21-ka bisha Agoost sanada 2020 ku soo dhawaad warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. muddo 25 cisho ayaa hadda laga joogaa waqtigii baarlamaanka ay kalsoonida kala noqdeen Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sida ku cad dastuurka madaxweynaha ayaa 30 cisho gudahooda laga rabaa inuu soo magacaabo wasiirkii koowaad ee la shaqeyn lahaa khubarada siyaasadda ee u dhoondoloola arrimaha dalka ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu ka fikiro xukuumad tayo leh oo wasiirada hadda joogana booskooda loo dhaafi doono wasiir Khadiija Maxamed Diiriye Jamaal Maxamed Xasan wasiir Bayle iyo xubno kale ayaa loo balan qaaday inay soo laaban doonaan dawladana kala shaqeeyaan in jagooyinkooda ay ku soo noqdaan wasiirada Maxamed Abuukar Islow Ducaale Cabdi Maxamed Sabriye iyo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa laga yaabaa inay ku soo noqon waayaan xilalka ay hadda ku fadhiyaan gooxa magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa aad kaga jira madaxtooyada qaranka iyadoo oo Mahdi Guuleed qadar oo xilka sii haya uu shaqo badan qabtay shakiga ugu weyn ee soo baxay ayaa in Mahdi Guuleed uu muddo xilka sii hayn karo ama jagada uu haysto ku soo laaban doono si xisbiga nabad iyo nolol uu ugu sii kordhiyo xubnaha ku soo biiraya xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaalaha ka howlgala ayaa niyadda loogu qaboojiyay in xilalkooda ay sii hayn doonaan in yar oo isbeddelka dhacaya sameynaya mooyee wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xilli 5 cisho ay uga harsan tahay muddada uu soo magacaabayo dhanka kale guddigii loo xil saaray baaritaanka weerarkii argagixisay ee 10kii bishan Agoost ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhawaan si rasmi ah u soo bandhigeen natiijada ka soo baxday baaritaankii ay sameeyeen guddiga oo bixiya warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa waxa ay sheegeen in 2 cisho ka hor maalintii weerarkaasi xabsiga la geliyay hub u fududay maxaabiistii shabaabka ahaa in ay weerarka ka fuliyaan gudaha xabsiga qorshaha weerarkaasi ayaa bilaabmay 8 bishan inta la og yahay iyadoo hub iyo bambooyin lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan liin ah gudaha loo geliyay xabsiga halka 10kii bishan oo ah maalinkii weerarka la fuliyay gudaha xabsiga lagu daabulay rasaas dheeri ah kadib markii uu hubkaasi u gaaray sidii uu qorshaha ahaa maxaabiistii shabaabka ahayd ee ku howlaneed fulinta weerarkaasi ayaa waxa ay si toos ah u bilaabeen weerarka maalinnimadii Isniinta oo ahayd maalinkii xabsiga loo geliyay rasaasta fara badan maxaabiista ayaa dagaal toos ah la galay ilaaladii xabsiga halka mid ka mid ah uu baxsaday intii uu weerarka socday kaas oo sarkaal ciidan ah ku dilay afaafka hore ee xabsiga hubka oo ay ku jireen bastoolada iyo bambooyin ayaa lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan liin ay ku jirto waxaana u suurta gashay in maxaabiistii ku howlaneed dhibaatadaasi in uu gaaro hubkaasi ayaa lagu yiri warbixinta baaritaanka waxaa kaloo warbixintaasi lagu yiri guddiga waxay cadeeyeen in maadaama uu soo dhamaaday baaritaankii ay sameeyeen ay arrinta ku wareejiyeen xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida dhacdada weerarkaasi ayaa loo xiray 27 qof oo ay ka mid yihiin 12 ciidanka asluubta ka tirsan oo saraakiil ay ku jiraan 6 qofood oo shacab ah iyo 9 ka mid ah maxaabiistii xukuumeed oo iyaga qayb ka qaatay weerarkii argagixisay ee ka dhacay gudaha xabsiga dhanka kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlay xafladda xiritaanka shirka Dhuusamareeb 3 ayaa sheegay in waqti badan uu ku bixiyay sidii madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland u keeni lahaa shirka mudane Qoorqoor ayaa tilmaamay in Dhuusamareeb lagu balansanaa 15kii bishan Agoost balse ay imaan waayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyagana ay geed dheer iyo mid gaaban bay u fuuleen sidii loo keeni lahaa balse aysan taasi dhicin waxaad ogtiin inay ahayd madal iyo balan 15ka Agoost in halkan la isugu yimaado iyadoo laga tashanayo hanaan doorasho dalku galo waa la yimid walaalo naga maqnaa ayaa jiray runtii waa la hadalnay waan doonay dadaal ayaan u galnay in ay soo xaadiraan geed dheer iyo mid gaaban buu u galnay laakiin ma noqon sidaas waxaad ogtiin maalintii toddobaad halkan inuu ka socday shirka oo ah waqti waafi ah oo ku filan walaalahan ugu yeernay taladii loo baahnaa in lagu gaaro ayuu yiri Qoorqoor dhinaca kale madaxweyne Qoorqoor ayaa shaaciyay in dalku uu aaday doorasho waxa uu sheegay in doorashadaasi aan looga daneynin shakhsiyaad gaar ah balse ay tahay mid ay ku wada guuleysan karaan mucaaradka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe dalka doorasho ayuu aaday ma ahan doorashadana ay ku leedahay dawladda federaalka ma ahan doorasho dawlad goboleed ay leeyihiin ma ahan doorasho cid ay ku xaglinayso waa doorashaan ugu magac darnay wada guuleysta waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo oo taladooda sugayna oo aan ka maarmin walaalaha naga maqan madaxdii tagtay Dhuusamareeb waxay sheegeen in markii ay si qoto dheer ugu wada tashadeen qaabka doorasho oo ay soo jeediyeen guddigaasi ay isla garteen in qaabka doorashada 2020 ay noqoto mid deegaan doorasho dhanka kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka ayaa bilaabay in ay si hoose ku shaqaaleysiyaan shakhsiyaad iyaga ay wataan oo muddo badan aan ka shaqeynin xafiisyada dawladda kuwaas oo qaarkood ay hoosta ku wataan xildhibaanadana gaar leh dawladda Farmaajo uu hogaamiye ayaa wax shaqaalaha aan qaadanin muddada 3 sano iyo barka oo ay jirto marka laga reebo shaqaale ku meel gaar ah oo go'aan u qaata $100 waxaana jira dhalinyaro badan oo qaarkood ka soo qalin jibiyay jaamacadaha ku yaala dalka oo si bilaash ah xafiisyada dawladda kaga shaqeeya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guddiga shaqaalaha rayidka ayaa muddooyinkan waday tirakoobka shaqaalaha dawladda si meesha looga saaro shakhsiyaadka labada mushaar ka qaata dawladda halka lagu baacsanayo mas'uuliyiin aqoon been abuur u samaysan yahay oo lacag ku qaata wajiga koowaad ee tirakoobka la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in qaladaad badan ay ka jireen habka lacagaha mushaaraadka loo bixinayay isla markaana uu jiro musuqmaasuq baahsan oo mas'uuliyiinta hay'adaha qaarkood ay ku kaceen waxaana sidoo kale la ogaaday in tirakoobkaasi ay jireen shaqaale ku meel gaar ah
oo ku dhow kun kuwaas oo guna ka qaata dowladda una baahan in shaqaale rasmi ah laga dhigo iyadoo ay jirtay heshiis ay dowladda la gashay bangiga adduunka oo ku aadan inta hay'adaha maaliyadda laga hagaajinayo in aan la qaadanin shaqaale cusub ayaa haddana waxaa jira warar sheegaya in ay socdaan shaqaalaysiin hoose oo ay wada dowladda federaalka taasoo lagu qancinayo qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka shaqaalaha ku meel gaarka ah ee dowladda ee muddada badan u soo shaqaynaya ayaa qaba rajo ah in dhawaan ay shaqaalaysiiso dowladda maadaama ay jireen nuuxnux ku aadan shaqaale cusub oo la qaadanayo inta u dhaxaysa dhammaadka sanadkan iyo sanadka cusub musuqmaasuqa ka jira dowladda farmaajo ayaa gaaray heer shaqaalihii dalka la kala xigsado isla markaana dad muddo badan jooga wasaaradda laga hormarsiyo dad ay jeebka ku wataan mas'uuliyiin dowladeed maskiin allah u maqan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo jariimooyin badan ka galay shacabka Soomaaliyeed ayaa iyadoo aan lala xisaabtamin waxa uu guri ka kireystay magaalada Muqdisho iyada oo ay weliba ku gadaaman yihiin ciidan beeleed ka soo jeeda beesha uu ka dhashay ee Murursade Xasan Cali Khayre ayaa shakhsiyan mas'uul ka ahaa dhoofinta iyo dhiibista haliyey Soomaaliyeed taasoo uu ku wareejiyay cadowga shacabka iyo qarannimada Soomaaliyeed oo ah dalka Itoobiya sida aad la wada socotaan haliyey Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaan weli ku laabanin magaalada Muqdisho ilaa intii laga musaafiriyay magaaladaasi waxaa dhawaan ka bilaaban doona dalalka Norway iyo Mareykanka dacwad ay soo oogeen qareeno caalami ah kuwaas oo dambiye caalami ah ku soo oogi doona Xasan Cali Khayre iyo kooxdii kala shaqaysay dhoofinta muwaadinka Soomaaliyeed waxaa nasiib xumo ah in qalbi dhagax uusan weli imaan magaalada Muqdisho iyada oo ninkii ka dambeeyay dhiibistiisa uu ku raaxaysanayo magaalada Muqdisho way adkaan doontaa in Soomaaliya ay gaarto cadaalad iyo horumar ilaa iyo inta dambiilayaasha ku tagrifalay awoodda iyo dhaqaalaha dalka ay si nabad ah ugu raaxaysanayaan gudaha dalka iyagoo aan marnaba ka baqayn in maxkamad la soo taago ma ahan kaliya in Xasan Cali Khayre uu awoodda dowladnimada dad ku dhibaateeyay balse waxa uu sidoo kale ku xasuuqay shakhsiyaad Soomaaliya kuwaas oo lagu duugay xabaal wadareed iyagoo kabahooda la duugay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ilaaladiisa la xasuuqay iyagoo oo difaacaya isaga ayaa dhankiisa waxa uu ku qancay lacag yar oo diya ahaan loo siiyay isaga iyo qaar ka mid ah ehelada raggii lagu xasuuqay gurigiisa waxaana nasiib xumaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku taamo in uu dal hogaamiyo isagoo iibsada dhiigii dadkii ka sugay inuu cadaalad u raadiyo Soomaaliya dowladnimadeeda ma dhawa inta dambiilayaasha shalay ay weli ku haminayaan in ay Soomaaliya hoggaan u noqdaan dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa digniin u dirtay dhinacyada ka maqan shirka Dhuusamareeb 3 oo ka socda xarunta maamulka Galmudug kaas oo la doonayay in heshiis loogu gaaro doorashooyinka Soomaaliya safaaradda Mareykanka ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda Twitterka ku sheegtay inaysan waxba u qaban karin kuwa ka maqan wada hadalka oo micnaheedu yahay inay lumiyeen awoodii ugu qayb qaadan lahaayeen go'aanada lagu gaarayo Dhuusamareeb safaaradda ayaa sidoo kale ereyga qaswadayaal u adeegsatay dhinacyada ka maqan shirka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka shaqaysay in dhammaan aragtiyada la soo saaray miiska shirka Dhuusamareeb 3 balse waxba uma qaban karto kuwa maqan qaswadayaasha diidan ka qaybgalka shirka waxa ay damacooda shakhsiyadeed ka hormariyeen dimuqraadiyadda ayaa lagu yiri qoraalka dhinacyadu waxay u baahan yihiin inay ku dhaqaaqaan inay isku raacaan hab doorasho oo waqtigeeda ku dhacda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku gacan saaray ka qaybgalka shirkaasi waxaana lagu guuldareystay dadaalo ay wada beesha caalamka oo lagu qancinayo inay tagaan miiska wada hadalka sida uu sheegay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah u weeri kartaa shabakadda Sirta Media adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media